طبعا جوش عاد waa xira ciidan oo wala digay wala la garanaya meeshu sawirada lagu soo qaaday la waxayna waa meel buura جوش عادنا طبعا buur ma aha waa meel xira ciidana waa meel xira ciidana oo iyada lafteedu meel god iskaga jirta marka meesha ciidanka xirada ciidanka iyada horta sawirada lagu ma soo dhax qaadin ba totalkeeda banaanba oo dad shacab reer Soomaaliland waxa ka dambeeyay layntooda Morgan haddana Morgan magaalada ka dhax marka ilaa inta wixii ka baxsanaa warar baa ka soo baxay oo iska soo daba dhacay wararka qaar waxay sheegayaan inuu tagay buuraha Caynaba duleedka Caynaba oo isagoo drone isku sawiraya meelaha in lagu soo sawiray kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka xog waran waxaan caawiday ku qaadaa dhigaynaa ma idin ku soo gudbinaynaa xogihii ugu dambeeyay ee dagaalka Laascaano iyo guud ahaanba maamulka la magac baxay Somaliland waxa aad maanta baraha bulshada u wareegay oo loo qaadaa dhigayay wiilka uu dhalay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyaddaas iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland oo la sheegay inuu tagay furinta hore ee Gooja Cadde warar kale ayaa sheegay in uunan tagin Gooja Cadde ee uu joogay Caynabo iyo meelo kale wararkaas way iskhilaafsan yihiin waxa ka jira iyo xogteeda rasmiga ah waan idin soo gudbinaynaa dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Somaliland ayaa isaguna waxa uu sheegay in Morgan uu yahay ninkii xasuuqay Somaliland sidoo kalena uu ahaa la taliyay madaxweynihii Soomaaliya hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maantana uu yahay midka oogaya dagaalka ka taagan Laascaano eedayn xoogana uu jeediyay wararkaasi iyo guud markooda aan idin falanqeynayna waxaana igu heliya barnaamijkan oo garabka iyo fadhiya wariye Muxiidiin Xarrago oo alaaba idin ku soo gudbino barnaamijka xog waran Muxiidiin soo dhaw wadhahay Cabdiraxmaan daawadayaashina waan salaamaya salaamullaah waan ka qaadnay daawadayaashana aniga u qaaday bal waxaan rabnaa inaan wax ka ogaano waxa maanta aad loo qaadaa dhigayay oo Laascaano ka caloosnaa ina Muuse Biixi Cabdi Axmed ninka lagu magacaabo oo saraakiisha ugu sarsareysay Somaliland oo la sheegay inuu tagay magaalada Laascaano iyo inta u dhaxayso Og waxa degan jamaahiirta oo sida la sheegay Yagoori iyo Guumeys iyo magaalooyin fara badan oo yani ay degan yihiin dhulbahanto kuwaas oo laga abaabulay ciidamo fara badan oo yani la rabay inuu Gooja Caddana jidkooyi iyo jabin ku sameeyaan sida la soo bandhigay aagaasna xidhaan sidee ku suura gashay hadii ay run tahay maxaa ka jira inuu Gooja Cadde joogay Cabdiraxmaan warkan kale inay Caynabo ay joogtay tahay intaas waxa kale oo kugu darayaa bal maxaa ugu dambeeyay war oo maanta dagaalkii Laascaano adoo isu koona ka raacinayo soo koobaya Cabdiraxmaan horta waad mahadsantahay dabcan maanta wararka inta badan waxa haystay inuu dhalay Muuse Biixi madaxweynaha Somaliland oo la dhaho Axmed Muuse isagoo markaas saraakiisha ciidanka ka mid ah Somaliland baa la sheegay inuu tagay furumaha hore ee ciidanka sida ay warbaahinta Somaliland iyo wariyaashooda gudaha Somaliland jooga ay dabcan baahinayeen sargaalka oo madaxweynuhu dhalay ujeedadu uu tagay waxa la leeyahay waxa weeye inuu ciidanka uu ugu tago moraal ahaan oo ciidanka dabcan sida ay muddooyinka ugu dambeeyay la sheegay ciidanka moraal ahaan waa ay hooseeyeen baa la leeyahay maadaama dagaalkii muddo dheer uu noqday dadka la dagaalamayna dad shacab noqdeen sahaydi ciidanku ay u baahnaayeen iyo gurmadkii iyo taageeradii shacabka ciidanka waxaan la soconaa waxay u baahan yihiin marka dagaal ku jiraan taageerada shacabka ee shacabka Hargeysa iyo Burco jooga taageero askari Gooja Cadde jooga ama furmaha hore ee sool ka dagaalamaya ma soo gaarayaan shacabkii ay ka dhex joogeen waa shacabka la dagaalamaya diidan inay si dhex joogaan marka moraalka ciidanka dabcan waa uu hooseeyay baa la leeyahay haddana talisyada sare amrada ka soo baxaya dabcan inayna dagaalka ka soo jeedsanin wala isku khilaafsan yahay baa la lahaa oo sin wararkeena hore ku tabinay xataa saraakiil baa arrimahaasi baa goosatay oo saameyn kala duwan baa ka dhaatay marka moraalka ciidanka dabcan la leeyahay waa uu hooseeyaa oo guule istaraatiiji maadaama dagaalka laga soo hoyn waayay dhan kasto ay noqoto capacity fara badan ciidanka la siin waayo waxyaabo fara badan aan ciidanka la siinin bil Ramadaan lagu jiro waxa la dhahay ninkaasi madaxweynaha isagoo dabcan matalaad ahaan ama dhanbaal uga wada ciidanka inuu dirigeliyo dagaalka maartay uu ku dirigeliyo marka ilaa inta wixii ka baxsanaa warar baa ka soo baxay oo iska soo daba dhacay wararka qaar waxay sheegayaan inuu tagay buuraha Caynaba duleedka Caynaba oo isagoo drone isku sawiraya meelaha in lagu soo sawiray
kadibna uu iskaga laabtay warar kale oo inta khilaafsan waxay sheegayaan inuu Gooja Cadde lafteeda uu tagay laakiin Gooja Cadde labada war markaynu iska rab dhigno Gooja Cadde in la galo waxaan la soconaa sidaad bar sheegtayba wadadan dheer iyo jidadka intaas u dhaxeeya jamaahiirtii baa degan oo dabcan iyagu markaa aan taabacsaneyn ta kale iskuma haleyn karo sargaal sare oo waliba madaxweynaha dhalay in dagaalka lagu dilo istiraatiiji bay noqonaysaa dadkuna waa ay beegsanayaan oo hadii la dhawo ninkii madaxweynuhu dhalay oo ciidan sargaal sare oo hadana taageer ahaan ciidanka u socda si gooni waa madaxweynaha wadada maraya uu ka duwan yahay dadka kale saraakiisha xataa Faisal Bootaan iyo nimankan saraakiisha uu ka sii duwan yahay waa nin madaxweynaha oo kale ah qofka madaxweynaha familkiisa wuxuu ka mid yahay madaxweynaha dil dil walaalkii macnuhu waxay noqonaysaa madaxweynaha marka taxadarkiisu aad buu badnaanaya oo istiraatiiji dagaal ahaan iyo macnaha wax lagu degdegay ma marka labada war marka la isbarbar dhigo warkan aynu Gooja Cadde dagay war la qaadan karo ma aha lamana xaqiijin karo wax warbaahin oo xataa TV-gooda hadii ay noqoto qaranka TV-ga qaranka iyo wariyaal kale toona ma joogaan oo cid xaqiijin karta inuu ninkaas halka tagay balse laakiin warkan kale inuu ciidanka u tagay ama uu Hargeysa ka baxay uu tagay dabcan isku dayay waa macaynaba ha tago buuraheeda isku sawira ama meel kale ha tagay inuu baxay dabcan warkaasi waa war jira waana la baahinaya muuqaaladiisa waradiisa la baahin maxaa calaamad ah ma jirtaa wax calaamad ah oo Gooja Cadde leeyahay oo lagu garanayo inuu ninkan Gooja Cadde tagay xaqiijinaysa dabcan Gooja Cadde waa xira ciidan oo waa la digan yahay wala la garanaya meeshu sawirada lagu soo qaaday la waxayna waa meel buura Gooja Caddena dabcan buur ma aha waa meel xira ciidana waa meel xira ciidana oo iyada lafteedu meel go'da iskaga jirta marka meesha ciidanka xirada ciidanka iyada horta sawirada lagu ma soo dhax qaadin ba totalkeeda banaanba lama arkin marka technically hubka iyo ciidanka kale ka dagaalamaya Mahad Cambaasho kaliya maadaama xirada uu joogay kamayna soo garab muuqan maadaama ayna ka soo garab muuqanin waxay ka dhigan tahay inuunan xiradaasi uunan ninkaasi uu sa imanin oo isagu moraal ahaan uu intuu la xiriiro isku day inuu waday oo markuu arkay inuu suuroobay inuu ka laabtay laakiin imika cadeyn waxa ku kalifaya iyadoo Gooja Cadde la imanin oo ragii Gooja Cadde saraakiishii haysatay aan sawir lala soo gelin oo kaarayaashii iyo difaaci ciidamadii ku jiray aan la arkin intii meel ka sawiraal iska qaado waa Gooja Cadde in la dhaw maxaa faa'iido laga helay dagaal markaad maqashaba propaganda kugu soo dhici dunidu dagaal markuu jiro propaganda jirta propagandadu marka waxay ka qayb qaadataa askarigu inuu been loo sheego moraal ahaan been loo sheego in la jahlumiyo in bulshada wax aan jirin oo khiyaal loo dhiibo marka hadii xaqiiqda la wajaho baasha siyaasadda iyo xaqiiqda runtii way kala fogtay marka hadii la dhaho waxa jira sidoo jiraan u sheegaynaa dagaalka waa lagu guuldareystay guuldarada la qiri lahaa waxa la dhihi lahaa waa kanoo ma qaban karna la ascaanoodna ciidankeena waa la dagaalamaya meeshana ma aha aynu iskaga baxnay wiilasheena naga dhimanayna waa la dhihi lahaa laakiin is adkeyn iyo wadooyin kale oo la isticmaalayo iyo ciidanka iyo dadka oo jahag macnaha ka duwanay macnaha maamulku ay ama dadka taliyaasha ama madaxweynuhu ugu sareeyay dadka taliyaasha lagu jahaynayo baa la isticmaalaa marka tani waxay noqonaysaa in ciidanku uu joogo oo saraakiil ka imanayso Hargeysa oo furmaha dagaalka tagayso ciidankii la dhiiri gelinayo ciidankuna moraal ay helaan marka askariga halka joogo isagu ma arkaya askari dhufayska ku jira waxa la dhihin laakiin waa lagu yimid waa haddaan taa inta ka soo laabano waxa maanta eedayn ay u jeediyeen wasaaradda warfaafinta Soomaaliland iyo xukuumadda Soomaaliland Morgan horta waa nin Maxamed Xirsi Morgan sidaan ognahay waa nin reer Soomaaliya Timaalada Soomaaliya ee Puntland madaxweynaha Puntland kuma aynan ogeyn wax yani inta dheer oo ama Soomaaliland cadaawad iyo dagaal marka maxaa keenay in hadda Soomaaliland iyo Morgan horta cadaawadu way ka dhaxaysaa Morgan Soomaaliland magaca markay maqasho way ka cabsataa Maxamed Siyaad Barre waqtigu madaxweynaha waa dalka gabadhiisu qabay bay dhahaan oo generaaladii ugu sareeyay waxa weeye talisyadii fulinayay hawlgallada Hargeysa laga qaadayo ee sanamta markii la dagaalamay iyo nimankii maylkaada Morgan waa niman jixin baa la dhahay marka gadheer ba hadda arkan Soomaaliland way khalkhashaa maanta waxaan arkay baraha bulshada niman Morgan oo keenay inta yar xiiran oo garkiisi dheer xataa laan Morgan waa nin gadheer bidaarna uu leeyahay
nin aan ninkii u yarakayn oo sidiis ahayn bay soo dhigeen waa Morgan ay lahaayeen ugu jacdo jooga oday reer laas caano oday reer laas caano marka Morgan iyo Somaliland way kala xaraaqaan marka waxa eedaynta looga dhigay gooch cadu furinta kaga jira miya sawirka la soo qaadanay kaas laakiin taas ma ahayne eeda ay soo sawirka oo meel ku joogo Somaliland oo eed kale bay soo jeediyeen wasiirkooda gaashaandhiga Cabdiqani Hebel nin la dhaho ba dabcan qoraal uu ku durayo ama uu kaga hadlayo Morgan ba uu ka hadlay TV-gooduna uu baahiyo soo dhigay waxa uu dhahay dhibaatada ka taagan gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood waxa qayb ka ama ka dambeeya Morgan in ka badan 50,000 oo qof oo dad rayid oo shacab ah oo magaalada lagu laayay siyaabo kala duwan loo laayay oo dad shacab oo reer Somaliland waxa ka dambeeyay layntooda Morgan haddana Morgan magaalada ka dhex dagaalamaya waa odaygan bidaarta leh xaalu wala waxaan ninka leeyla lagu arkin baalada oo la soo sawirayay mise hadu maamul gobolada dhexe midkood marka Soomaalidu way soo eegtay marka nin uu eego dagaalka jiido ka jiro ma la soo qabtay tamay waxay Soomaalidu dhahdaa labadii halkii qof kale oo la dhoobo gaala dadka moogta aadanaha maadaama dhoobo laga qaado qofka waa la dhooba la dhaha waxa laga yaabaa imika nin adoo kale in la arko oo la dhaho dabeetana waa fagaadhow la dhaho ha marka way iska badanaan imika suuqa dad joogto qofka ku oran anu waxaan ka yaab ninka dheer hadii lagu arko magaalada Laascaanood in la dhawa Morgan marka طبعا eedaas ay u eedeeyeen inuu dadkaas oo ka dambeeyay magaalada uu ka dhex dagaalamayo hore waxaan u ogeyn in Soomaaliland ninka uga cabatay kama jawaab Morgan inta badan kama jawaab oo hadalada Soomaaliland uu iska garanaya waana ninka kaliya hay maamulka Soomaaliland ka cabsadaan marka Puntland laga hadlayo dani iyo nimankan Cabdiwali iyo nimanka waxba uma arkaan waxay ka cabsadaan waa Morgan iyo ninka la yiraahdo Asadiano oo ninkaas oo isaguna ciidamo wuxuu wataa BSF la dhaho ciidamada iyo ninkan waa laga cabsadaa waa nin isaguna aan jixjixin baa la dhaho dhalinyara Morgan waa ninkaas marka Morgan markii doorashada u tartamayay dabcan Cabdiwali markuu ka tagay imika dani uu socday uu doorashada u tartamaya la dhahay isagoo tartan kaba gelin oo si cad u gelin Soomaaliland way ka qeyrayso waxa dhahay waa ninkii xasuuqay waqtigaana tukaraq iyo murankeeda yar jiray oo 2017 oo waqtigii la wadaagay doorashaduna 18 meelahaas dhacday marka cabsi laga qabo weey marka eedeymahaas bay u jeediyeen laakiin Morgan kama jawaabin maamulka Puntland kama insa jawaabin laakiin Somaliland waan isku ognahay oo kalba siyaasi ba mikrofon hoos dhiga wuxuu doono ku hadla wakaas aad iyo aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye Muxiidiin Xarago daawadayaal barnaamijkeeni xog waran ee caawa qaybtiisii koobaadna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa wixii talo iyo tusaale fadlan oo commentiga aad iyo aad baan daawashadiina ugu mahadsantihiin tan iyo inta barnaamijka kan xiga isugu soo noqon doonana waa bahda xog waran oo idin leh isma dhaaf